gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Professor Aadan Xaaji Cali iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin garsoorayaal maxkamadda sare ayaa baryahanba kormeer hawleed ku joogay deegaanada gobolka Awdal waxaana ujeedadu ahayd sidii ay cadaaladda ugu soo dhaweyn lahaayeen gobolada galbeedka Somaliland. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland waxa uu maanta kulan la qaatay madaxda sare ee ciidanka booliska gobolkan Awdal iyo saldhigyada booliska ee ka howlgala degmada Boorama. Waxaana ugu horeyntii uu warbixin ka dhageystay taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal oo tilmaamay gudoomiye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay booqashadaadan inaad markaa gobolkan Awdal wixii cabasho ee uu qabo ee arrimaha dhulka siiba xagga shaqada oo dhammaan xagga xabsiyada qaybta booliska maxkamadaha qaabkooda wada shaqayneed inaad kormeer noogu timaado si aad xogaal ugu noqoto bilqaabka wuxuu jiraan aad baan ugu faraxsanahay 100% aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana kugu soo dhaweynaynaa gobolka dadkan gobolka jiidan ama deegaankan waxay u tahay aad iyo aad farxad weyn bay u tahay iyo rayn sababtoo ah dad halkan ka tegi lahaa oo baabuur qaadan lahaa oo transport geli lahaa oo Hargeysa ay suuragal tahay inaanay hurdadu iyo muxuu ahaa meeshay ku degayaanba ay culays baa ku noqon lahayd ayaad u fududaysay halkan iyagoo guryahoodii jooga markaad cabashooyinkooda iyo hawshoodii aad halkan ugu timaadeen intaad xafiisyadiina ama xafiiskaagiiba aad soo xidhay waa wax Ilaahay mahadiya runtii ilaahayna ha ka jista ay siiyo waayo dadku waa xilli adagna waa la iskaga jiraayo dadku waa iska Itaaliyar yahay kullay anagu ciidan booliis ahaan gacmaha maxkamadahaanu nahay ama baalashoodaanu nahay ama lugahoodaanu nahay kullay wax xirista waaran la gooyo oo sir jooga lagu gooyo ama fadhiga lagu gooyay soo qabashada iyo xirista iyo xabsigeyntaba waxa iskale muxuu ahaa xabsigeynta siideynta iyo xabsigeyntaba waxa le muxuu ahaa maxkamadda awooddaas kale sidoo kale taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Boorama iyo taliyaha saldhigga bariga ayaa iyaguna ka waramay howlaha ay qabtaan saldhigyadaasi iyagoo sheegay inay dadkaasi cadaalad ugu shaqeeyaan. saldhiggu wuxuu ka kooban yahay laba stood muxuu ahaa xafiiska taliyaha saldhigga iyo xafiiska baarista iyo xafiiska OB-ga iyo 3 qol oo kuwa maxaabiista halka ay muxuu ahaa hadii la yiraahdo aynu arki doono waxa kale oo jira waxa la dhisay muxuu ahaa saldhigan oo ilaa imika uu taagan yahay waxa weeyaan 1968 baa la dhisay oo halkana ku qoran hadii muxuu ahaa aad arki kartaan inkastoo la xaquuqay waxa kale oo jira halka 2 qol baa jira oo dumarka iyo caruurta oo loogu talagalay soo jeedka dumarku ay ku xiran yihiin iyo qol caruurta iyo qol dumarka ayaa jiro iyaguna halka muxuu ahaa loo dhisay qolkani waa qolkii taliyaha saldhigga qolkaasina waa qolkii madaxa baarista oo baariyaasha ayaa wax ku qoran qolka ku xigana waa OB-gi marka mudane gudoomiye intaasaanu ku shaqeynaa saldhigga bari ahaan anaga kulay saldhigga dhexe ayaa naga kiisas badan laakiin haddana inta habeen iyo maalinba waa la ordaya oo dhalinyarada maxay habeenkii ama moobilada dafaysa ama kuwa maxay dunuubaha kala galaya intaba heegan baynu u nahay maxay meelaha ay waajibaadkooda maxay laga marana waan u gudbinaa oo maxkamadda ah heer degmo iyo heer gobolba saldhigguna wuxuu ka kooban yahay ilaa 6 qol buu ka kooban yahay marka 3 qol ee maxaabiista laga reebo. waxaa isaguna goob kasta oo uu tago ka hadlayay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Awdal Sheekh Maxamed Saciid Saaweer. boolisku horta waa nimanka maxkamadda wada shaqeeyaan maxkamadaha halka lagu duulo iyaga amniga qaabilsan dana maxkamadda muxuu ahaa gobolka ama degmadaba si fiican baan wada shaqeynaa oo waan isku xidhannahay haday tahay xeedalinta iyo booliska dhammaan iyo xabsiyada waxaan dadka isku xidhan
aad bay dee isku xidhannahay shaqadu si fiican bay u socotaa aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo anigu waan isku dhownaho maxkamadiiba kala fogay iyo muxuu ahaa iyo station dee yar bay noo jiraan oo dee wax kasta dhacaan oo aad baan jaar baan nahay sidaa darteed aad bay muxuu ahaa shaqadu u fiican tahay kolley xabsigaas unbaa dee aad aragtay shalay eed indhaha kusoo aragtay kaa unbaa dhibaato ka jirta oo cidhiidhi ah waxaa ugu dambayntii goobaha si kala duwan ee ay booqanayeen ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan brofesor aadan xaaji cali waxaana uu sheegay in ay jecel yihiin in cadaaladda ay u soo dhoweeyaan dadka oo halkii looga tegi jiray dacwadaha maxkamadda sare ay gobolka keeneen islamarkaasina ay maxkamaddii sare u soo guurtay maalmahani gobolka awdal iyo deegaanadiisa waxaana uu ballan qaaday in hawl kasta ay ka garnaqi doonaan muddada ay joogaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi soo dhaweyntaasi inaanu soo booqanay ujeedada ugu muhiimsan aanu nibina waxa weeye kow kormeerkaas marka laga yimaado khaasatan maanta booliiska oo aanu madaxdoodii oo dhan gobolka la fadhino waxaan anigoo ku hadlaya afkii garsoorka oo dhan iyo cadaaladda iyo amniga iyo waaxda dhan ee qaranka ah ee saddexaad waxaan idinka mahadnaqayaa shaqada fiican a haysaan ee dadkiina iyo dalkiina u haysaan har iyo habeen waayo waxaad tihiin hay-adaha keliya teen seexan baa tihiin waxaan doonaynaa madaxdiina kala duwan ee gobolka joogta inaan mahadnaqa idin jeedino oo nano shaqadaasi anigoo ka tirsan madaxdii qaranka waa la ogyahay waan idiin ognahay waa la soconaa duruufta adaa ku shaqaynaysaan marka halkaa kasii wada boqolaal idinka idinka mida baa soo shaqeeyey oo booliiska ka mid ah oo retire garoobay waxaan ogay gobolku hay-adaha amniga ilaa iyo garsoorka laga gaadhayo cadaaladdu wada shaqayn fiican baa leedihi markaa wada shaqayntaa fiicanna in lasii xoojiyo waxa iyaduna muhiima oon halkan ugu bashaaraynaynaa taliyaha qaybtii tali ku-xigeenkan waanu sheegay waxbarashada tababarada iminka gobol walba markaanu tagno jaamacadaha gobolka ku yaalaan heshiis la saxeexaano ilaa intaan garsoorka yimi sababtoo ah markaa heshiiska waxaan siinaa scholarship waxbarasho freeya inay helaan ayo garsoorayaasha xeraalayaasha booliiska asluubta iyo bahda kale cadaaladda marka iminka waxaanu wadnaa oo insha allah intaanan noqon inaanu laga yaabaa inaanu heshiis la gallo jaamacadda camuud iyo eelo oo midba qaybaha xitaa waxa ku jira luqadaha ku jiraya koorasooyinka gaaban baa ku jiraya markaa taana waxaan idiin soo jeedinayaa markay dhammaato annaguna waa idinla socotiina wixii dhammaada inaad ka faa'iidaysataan oo waaxda ka qayb galaysaa tihiin lamid baa tihiin markaa qofkii dee dadka khibradda le baa tihiin laakiin haddana mar walba cilmiguma dhammaado tababarkuma dhammaado abliftinka iyo in saru laysu qaadaa ma dhammaado dhanka kale waxaa iyaguna arrintaasi soo dhoweeyey dadweyne aad u tiro badan oo ku faraxsan sida fiican ee uu u qaabilayo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha la socdo waxaana ka mid ah dadkaasi axmed yuusuf faarax abraar axmed dakhtar oo isaguna arrimahaasi ka warramaya waxaa hadalladiisi ka mid ahaa guddoomiyaha sharafta iyo karaamada wada aadan xaaji cali ayaan horta halkan ka salaamaya oo anu hambalyaynayaa oo xil weyn oo waafiyi uu saaran yahay mudane muuse biixi madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici iyaguna sida sharafta le noogu soo diray ee yidhi warbal galbeedkii yar gaadha allahayna karaameeyaan odhanayaa shalay toole isniin bay ahayd waxaan arkay runtii faraawil aad u qurux badan dad badan oo caawiyo badan wata waxaan idhi war dadkaasi waayo markaasaa laga yidhi jeelkii intay tageen guddoomiyihii iyo wufuuddii iyo xeeralihii guud ee la socda ayay jeelkii wixii xaqdarrada ku xidhnaa ee waddanka soo qaadeen waxaan guddoomiye weliba kaa codsanayaa faraawilkaa aad maanta beertay inaad magac ku yeelato weliba boorama ayaan aad u jeclahay oon aad u rajaynayaa inaan faraawilkaa dhigno waxaan guddoomiye kaa codsanaynaa inaad ninka dulman aad u hiiliso waa caafi tv-ga qaranka somalilan boorama